oo hadda la soo gaaray ayaa sheegaya in kala badh deegaanka canfarta ay gacanta ku dhigeen ciidamada difaaca Tigreega ee ka amar qaata jamhadda mayalka iyo mowqifka adag ee TPLF kadib dagaalo xoog badan oo maalmahan ka socday gudaha deegaanka canfarta kuwaasoo u dhaxeeyay ciidamada Tigreega iyo isbahaysiga ciidamada Abiy. haddaba arrintan oo argagax weyn gelisay taliska Addis Ababa ayaa waxay sababtay in maanta dhammaan diyaaradihii duulimaadyada shacabka u qaadi jiray caasimadda deegaanka canfarta ee Samara in gebi ahaanba la joojiyey iyadoon xataa maamulkii dowlad deegaanka canfarta la wargelinin islamarkaana loo aamusay shacabkii tigidhada u goostay inay maanta u safraan deegaanka canfarta. waxaa kale oo ay qabsashada ciidamada difaaca Tigreegu ay qabsadeen qaybo ka mid ah canfartu sababtay in 26 bangi oo deegaanka canfarta ka howlgeli jiray in albaabada la isugu laabay gebi ahaanba lana joojiyey adeegii iyo shaqadii ay shacabka waayeen. arrintan ayaa waxay caddeyn u tahay inuu dagaalo xoog badan ka socdo gudaha deegaanka canfarta islamarkaana ay ciidamada difaaca Tigreegu guulo laxaad leh oo istaba joog ah ka gaadheen gudaha deegaanka canfarta. waxaa kaloo xusid mudan inay jamhaddii canfarta ay mayalka adkayd iyaguna ay ku biirtay TPLF. isku soo wada duubo maalmahan dagaaladii ka socday gudaha deegaanka canfarta ayaa waxay ciidamada difaaca Tigreegu ku furteen hub aan cadad lahayn gaadiid iyo sanad nooc walba ah. هناوس واتساب عركي واسيقا Ortalar